إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخواني الكرام، ربنا سبحانه وتعالى wuxuu u hufan yahay, ku ammaanan yahay in waqtiyada uu kala fadli badnaysiiyey bilaha iyo habeenada iyo maalmaha inuu kala saramariyey rabbigan subxaanahu wa tacaala oo qayba bilaha ka mid ah amaba maalmaha ka mid ah ama habeenada ka mid ah fadli badan uu rabbigan subxaanahu wa tacaala gudahooda dhigay ayuu rabbigan ku mahadsan yahay kuna ammaanan yahay. rabbigaas fadligaas aada noo sameeyey ama rabbigan fadliguu noo sameeyey waxaa ka mid ah ayaamahan maanta uu rabbigan subxaanahu wa tacaala cumrigeenna intuu ziyaadiyey ama cumrigeennii noo waasiciyey maanta inaan gaarno fadligaas uu na siiyey. ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala, lahu alnicmatu walahu alfadlu walahu althanaau alxasan. ayaamahaas marka tobanka ah fadaaisha ku sugan lama koobi karo. waxaa ka mid a rabbigan subxaanahu wa tacaala inuu ku dhaartay walayaalin cashrin ayuu rabbi yihi subxaanahu wa tacaala. tobankan dilxija u horeysa inay tahay ayay saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam iyo mufasiriinta ku sheegeen. ilaahay baa ku dhaartay tobankan maalmood. rabbigeenna subxaanahu wa tacaala shay hadduu ku dhaarto shaygaas weynaanta iyo booska iyo cadamada uu leeyahay ayuu ishaarayaa. marka rabbigan subxaanahu wa tacaala ayaa tobankan maalmood ku dhaartay. tobankan maalmood hawaabta ayaa la laablaabaa. waxaa la sunneeyey in cibaadaadka la badiyo iyo samafalka, camalka wanaagsan oo lala yimaado oo weliba rabbigeen subxaanahu wa tacaala wejigiisa qofku ula qasti waxaa laga helaa wax aada weyn. ayaamo u dhigmana ma jira ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh ali wasalam kama akhrajahu ama rawaahu ibnu cabaasin radia allahu tacala anhu ardah ana nabiya sal alla slam anahu qaal ayaamo qofka uu camal wanaagsan la imaado oo ayaamahan tobanka bisha dilxija ka fadli badan ma jirta ayuu nabiga leh sala allahu calayhi waali wasalam. saxaabadii su-aal bay weydiiyeen, nabi allow xitaa jihaadkii oo jidka alla lagu jihaado ma tobankan camalka wanaagsan oo loola imaado oonan jihaad ahayn ayaa ka fadli badan? markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam walaa xataa jihaadka ayaga camalka wanaagsan oo loola imaado ka fadli badan ilaa qof inta jihaad u baxay maalkiisay isagiba aan cid ay soo noqonin ma oyane. saasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam. camalkaas marka wanaagsan uu nabigu u sheegay ma salaad kaligeeda? waa maya. ma soon kaligiisa? waa maya. waa abwaab aad u badan oo la koobi karin. waa camal kasta oo suuban, waa mutlaq. salaad yaa ka mid ah, sunnada ahayd iyo tii faradka ahaydba. soonkiyaa ka mid ah oo sunnada ahaa. sadaqadii ayaa ka mid ah. silaturaximka ayaa ka mid ah. dadkii oo wanaagga la faro ayaa ka mid ah. xumaha oo laga reebaa ka mid ah. islaax daat albayn, cidda isku dhegan oo is haysato in la maslaxayaa ka mid ah. waxaa imaamat alabaar ariiq wasakdi jidka in laga qaada ka mid ah. marka wax aan la koobi karin oo waajibaadka iyo sunnadaba soo geli. towbada alla loo tooba keenaa ka mid ah. qur-aankii alla oo la aqriyaa ka mid ah. alla oo la xusaa ka mid ah. rabbigeen subxaanahu wa tacaala waxyaabaha sida goonida ah uu ishaaray tobankan waxaa ka mid ahay dikriga alle in la badiyo, khaasatan takbiirtu. rabbiga wuxuu le subxaanahu wa tacaala wayadkuru isma allahi fii ayaamin macluumaat, inay ayaamo la yaqaano
ay alla magaciisa xusaan oo sheegsheegaan amaanaan weyneeyaan inay sameeyaan ayaa wanaagan iyo faradkan iyo xajkan loo gaarsiiyey ha xuseena wa macna waa noocaas takbiirta marka loo baahan yahay waa laba qaybood takbiir waa mid iska sii daysan oon waqti habeen imaanin tahaaro qab ama tahaaro qabin masjid ku jira ama ka marna waan ku xirnay waa mutlaq taa waxay bilaabanaysaa bishii markay bilatay ay bilaabanaysaa ilaa uu muxuu ahaa xajka uu ka dhamaado waqtigiisa iyo ciidii iyo muxuu ahaa ayaam tashriic ay ka dhamaatay uu iska socon waa mutlaq weeyaan lidalika cabdullah bin cumar iyo abu hurayra iyo saxaabada rag ka mid ah iyo xataa sayid cumar radi allahu taala ardah ayaaba mina way dhawaaqi jireen suuqyada jidadka meel walba ay ku dhawaaqi jireen sayid cumar radi allahu taala ardah isagoo mina jooga ayuu muxuu ahaa takbiirta qaadi jiray takbiirtaas ayaa ummaddii teendhoorin ku jirtay ee la qaadayaan oo dhawaaqayaan markaas haminoo dhan way ruuxmaysaa takbiir awgeed taas waa mutlaq midna waxaa weye waxay ku xiran tahay dubur salawaat salaadaha markii la tukada faradka ah kadib ayaa la qaadaya taa waxay bilaabanaysaa fajarka yowma carafa ay bilaabanaysaa ilaa saddexda maalmood oo hilbawaradka loo yaqaan ayaam tashriiq ay ka gabagaboobaan way soconaysaa casirkeeda ayaa muxuu ahaa lagu gabagabaynaa maalin saddexaad oo ciidda marka laga saaro saddexda maalmood maalinta u dambaysa salaada casr marka la tukada ayaa u dambaynaysa weeyaan ikhwaani kiraam marka acmaashaas dikriga alla lala imaani iyo takbiirtaas in aad loo xoojiyo waa hadiga nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam in lagu dadaalo ay aad loogu baahan yahay tobankan maalmood waxyaabaha gudaheeda ku jira waxaa ka mid ah in yowmu caraf uu rabbigeen dhexdeeda dhigay bilaash looma dhihin waa ayaabo qiimo badan yowmu carafa rabbigeen subxana wa tacala wuxuu soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diinan maanta ayaan diintiina idin taam yeelay nicmadaydina idinku soo dejiyey islaamnimadan idinkaga raalli noqday waa maalinta ay soo degto diintan ilaahay subxana wa tacaala noola kaamil yeelay yowmu carafa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu sheegi uu noo cadayni naguna boorini inaan soonno wuxuu leeyahay ilaahay agtii waxaan kaga xisaabsanayaa yowmu carafa soomkeeda inuu dembigii sanadka hore iyo sanadka dambe ku dhaafo ayaan rabbigeen agtiisa ka xisaabsana oon ka filna ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waali wasalam yowmu carafa nabigeena wuxuu ku sheegay sala allahu calayhi waali wasalam maalin uu rabbi subxaana wa tacala addoomaha inuu naar ka xuray ay ka badanta lama arko yowmu carafa ayaa ku jirta gudaheeda dhowr biri ayaa ka harsan waxay ku beegan tahay yowma alkhamiis alqaadim insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta khamiista ay ku aadan soo socoto rabbi hana gaarsiiyo hanana waafajiyo inaan soonno si camalkaas wanaagsan oo rabbi subxana wa tacala iyo hawaabtaas wanaagsan oo rabbi noo ballan qaaday calaa lisaani nabiyihi aan u helno weeyaan tobankaa maalmood acmaasha in la qabto loo baahan waxaa ka mid ah aludxiya udxiya in la gowraca udxiya in la gowraca ka mid ah waxyaabaha soo arooray nabigeena uu samayn jiray sala allahu calayh wasalam uuna saxaabada iyo ummadda ku booriyey ka mid ahayd nabigeenana calayhi salatu salaam wuxuu leeyay qofkii udxiya ina gowraca rabo oo hawshaada niyeeday yuusan tintiisa taabanin ama madaxa ku taallo meel kale ku taallo cidiyaha yuusan taabanin ilaa uu ka gowraca qofkii marka niyeysan inuu wax gowraca bishii marba haddii ay bilato ha ka istaago inuu wax jaro ama tin ha noqoto ama ciddi ha noqoto ilaa uu neefka gowraco waa hadiga nabigeena iyo amarka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam gabagabada tobankaa maalmood waxaa ku jirta alciid ciid aladxaa rabbigeena subxaana wa tacala labada ciidood uu nagu manaystay ciiddaas iyada ah waxaa dhici karta in bannaanihii lagu tukada ood rabbi uu yasiro waa suuragal waxaa suuragal ay u badan tahay in masaajidihii lagu tukado mid ay ahaataba aadaabteed inaan dhowrno ilaalino in loo soo qabaysto dar quruxsan oo laakiin shuruuddii iyo aadaabtii sharciga ilaalina aan xiranno in liisu tahniyadeeyo in waxaa weeyaan qofka cunacunka uu dib u dhigta ilaa uu muxuu udxiyadii haddii uu wax udxiyo gowraci uu muxuu ka gowraca iyo in wanaagga liisfara xumaan la iska reebo aadaabteeda aad bay u badantay laakiin qaybahaas ayaa ka mid ah ikhwaani alkiraam ilaahay fadligaa uu noo galay gaarsiintu ayaamahan una gaarsiiyey maanta aan caafimaad qabno dhex joogna aan ka faa'iidno
allana subxaana wa tacala aan ugu mahadnoqno fadligaasna aan ilaahay inuu nasiina aan rajayno aanan rumayno. waxaa laga yaabaa qofka inuu maqlitaan ay ku noqoto oo fadligaas ilaahay uu sheegay subxaana wa tacala dembi dhaafka noqoya fadaaishaas ku sugan oo la sheegay noqotaya qofka inuusan aad yacni u yaraa ay ugu daadegina laga yaabaa. ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ana cinda danni cabdii bi, aniga addoonkayga meeshuu iga malaysta maan u joogaa. marka inuu dembigaan na culseeyey uu rabbi nooga dhaafa acmaashaas aan la imaanayno aan niyeysana allana aan ka barina subxaana wa tacala inuu na waafajiya nagana aqbalo. alaa cibaad allahi saluu وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين على أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.